Bismillahirrahmanirrahiim waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Taiwan Frankie Wu ayaa sida ay warisay warbaahinta Bloomberg waxa uu yiri waxaan aad uga baqayno waa in Taiwan lagu daro ajandaha xilli ay dhacayaan wadahadallo u dhexeeya Xi Jinping iyo Donald Trump wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa ku jiro safar uu ku marayo dalal dhowr ah waxa uuna ugu horeeyay Islamabad isaga oo sidoo kalena booqanayo caasimadda Oman ee Mas'ad iyo Moscow sida aan wararkeennii horeba idinkugu sheegnay isla waqtigaas Trump ayaa u diray Jared Kushner iyo Steve Witkoff magaalada Islamabad walow aan weli la xaqiijinin inay la kulmeen Abbas Araghchi waa wasiirka arrimaha dibadda Iran dhinaca kale Mareykankii ayaa waxa uu la kulmayaa fadeexad aad iyo aad u weyn wargeyska Mareykanka ka soo baxay ee Newsweek ayaa ku waramay in ciidanka Mareykanka ee saaran maraakiibta dagaalka inay wajahayaan cunno yari iyadoo sawirada laga soo qaaday markabka diyaaradaha xambaar ee USS Abraham Lincoln ay muujinayso askarta saaran in qaybaha cunnada ee la siinayo ay aad u yar yihiin ama ay kooban tahay cuntada Iran ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu faafinayo warar been abuur ah oo la xiriira socdaalka wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ee Islamabad inuu la xiriiro dib u bilaabista wadahadallada ama dalab wadahadal oo Iran u gudbisay sida uu baahiyay telefishinka dowladda afkeeda ku hadlay Iran oo si cad u sheegay Abbas Araghchi inuusan la kulmi doonin wafdiga Mareykanka ee tagay Pakistan warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Araghchi uu u tagay Islamabad oo kaliya in uu gudbiyo mowqifka Iran wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa soo saaray bayaan kadib kulankii uu la yeeshay madaxa ciidanka qalabka sida ee dowladda Pakistan General Azim Munir bayaankan ayaa sheegay inay ka wada hadleen horumaradii ugu dambeeyay ee la xiriiray xabad joojinta u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka waxaana sidoo kale lagu xusay ama uu xusay in Araghchi uu la wadaagay aragtida iyo tixgelinta Iran ee ku saabsan sida loo soo afjari karo dagaalka dhanka kale bayaankan ayaa intaas ku daray in Azim Munir uu sheegay in Pakistan ay diyaar u tahay inay sii wado wadahadallada dhexdhexaadinta ee nabdeed